toddoba su'aal ayaa janno ku geynaya ama naar ku geynaya. Ma ka shaqaysay, ma sii diyaar garaysay, ma ku baraarugsan tahay iskuullada iyo jaamacadaha imtixaanka ay naga qaadaan haddaan ku dhacno sanadka ku xigaba waa lagugu celinaya oo mar labaad baad u soo fadhiisanaysaa imtixaankii aad sanadkii hore ku dhacday. laakiin imtixaanka toddobada su'aalood ka kooban kii ku baasana waa ku baasay, kii ku dhacayna waa ku dhacay, lagu soo celin maayo mar labaad. toddobada su'aalood saddex qabriga ayaa lagu weydiinayaa inaad maanta ka sii shaqaysid. ما ربك ما دينك ما نبيك قفك إلهي ما أنت كامر قاتا دين تكسير لقماء نبي محمد سنه سقاطة عليه الصلاة والسلام وكجواب دون صدح ذا سؤالود قفك إلهي كامر قادا ويا دين تكدقا لقوايا نبي محمد عليه الصلاة والسلام دبقل ويا ما أنت كما جوابي كرو أفرنو حلاد النبي عليه الصلاة والسلام قفنا إلهي كمهر دقاق يا قيامها إلا وأفرتا وكجوابه نلاش هذه عمري قاقي وقت جي لقسية أدوية محاد كسور دما يسطي سؤاش اللي بعدنا وحويا وحلقوا علينا dhalinyarnimadaadii xooggaagii maxaad ku soo gaboojisay. su'aasha saddexaadna qofka waxa lagu oranayaa xoolahaagii, maalkaagii, adduunyada wixii ka soo galay ma xalaal bi kugu soo galeen mise xaraam bi kugu soo galeen. markii ku soo galayna xagee kaaga baxeen, ma xalaal bi kaaga baxeen mise xaraam bi kaaga baxeen. su'aasha afraadna qof walba waxa lagu oranayaa waa can cilmihi, aqligii iyo aqoon iyo diin inta waxa weeyaan ku soo xiro gashay maxaad ka yeeshay, maxaad ka samaysay. ilaahay toddobada su'aaloodba kuwa maanta ka sii shaqeeyay oo sii diyaar gareeyay الله نقدقه. النبي وحده صلى الله عليه وسلم طال عضي الله تصي قفك بين لوغا سيده لو عذابيو نبي وحي waa la dheelmiye waan soconay waxaan u nimid buu yiri nin yaala dhulka jeega u yaala oo dhinaca jeegada dhulka u yaala oo indhihiisa kor u taagaya u nimid iyo mid kale oo la dul taagan bil mishaar ah oo af badan la dul taagan ayaan u nimid midkaas kala wuxuu cadaabayaa midkaan dhulka yaala markaasoo halka qowlalada intuu kaga qabta birtaas ayuu jeexaya ilaa qoorta u geeyo mankharahu ila qafaa halka sankaagu mar labaad intuu ka saaro jeexaya ilaa qoorta u geeyo wa aynahu ila qafaa ishuu ka dilaacinaya jeexaya ilaa qoortu geynaya dhinaca saddex meelood markuu ka dilaaciyo ayuu dhinaca kale u gadinahaya markaasuu saddex kale oo sidii oo kale ka jeexaya markuu dhameeyo midda dambe ayaa dhinacii hore uu raysanaya oo isku dhagaya sidii hore uu noqonaya markaasuu ku soo laabanaya oo waxa weeyaan dilaacinaya markuu dhameeyo dhinacii kale raysanaya markaasuu ku soo laabanaya nabigu wuxuu yiri fayusna'u bihi ila yawm alqiyamah ila qiyamah saasa loo cadaabaya naftu kana dhici mayso cadaabkaasna laga joojin maayo